رأيي أن قبي وحبس كما بدلين وحاول أن وحمر كل عسوب يهي وحباهن يهي إن سمر بوباهن يهي يددال بدن بوباهن يهي وحمر كل بالله وضع مال لا وحبون الأولين والدولة ماشي أنا كتشرين ووحي تشرين ويهي واحد إسكار روديمنتري يا هرتا ودن كوكسوين حتى marka nin kasta oo Soomaali qaranka Soomaali ka yimid iyo ninkii qabiilka Soomaali sida aniga oo kale laakiin qaranku xiga meesha ka yimid waxa loo baahan yahay in garab la siiyo nidaamka cusub oo hadda soo baxay sidii ay shacabku u siiyeen sidii ay u siiyeen mudanayaasha sidii baarlamaanka hadda u siiyay labada aqalba maartay u siiyeen oo maartay golaha wasiirada oo ay soo magacaabeen ay u ansixiyeen waxa weeyaan wax dhameystiran oo wada sakaman ilaahay baa laga helaa daliil hadii la raadiyo meel aan daliil laga helin malaha laakiin waqtigan hadda la joogo waxa loo baahan daliil kasta in la daboolo sida daliishii loo hagaajin lahaa oo daliilnimada intii looga bixiyo manfac ay u noqon lahaydna in lagu wada shaqeeyo midda ayada ahna mid hadda ninka labadii maxay hadda xukunka hayna madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha kali loo daynay ma waa mid nin kasta oo Soomaali meel alle meeshii uu joogo dhanbo inuu garab u noqdo loo baahan yahay midda kale Soomaaliya way burburtay macruul iyo gaajo iyo dhaqaale la'aan iyo boqol dhibaato ayay ku sugan tahay maanta arinta ugu weyn waxa weeyaan sidii iqtisaadiga wadanka loo kobcin lahaa sidii ma aragtay dekadaha loo badin lahaa oo loo hagaajin lahaa sidii ma aragtay qaybaha kala duwan oo ma aragtay dhaqaalaha iyagana loo soo nooleen lahaa oo loo kobcin lahaa sidii khayraadka Soomaaliya ilaahay uu siiyo hadda la boobahay sida badeeda oo kale sida ugu degdegsiin badan loo sugi lahaa oo tuugada isku imaato adduunka dhanka imaatay looga ceyrin lahaa inta kulli waxa ka horeysa sidii nabadii loo sugi lahaa oo maaragtay dadka nabadda doonayana nimay doonaan bahaadan loogu baaqi lahaa inay ay wada hadal dadka ay la galaan oo nabadii wada hadal lagu sugo ninkii wada hadal aanan ogoleen oo fikrad maaragtay ajnabi ka socoto oo wareersan maaragtay ku qafilan tahayna si Soomaaliya oo dhammaanteed isku tagtay iska celin lahaa oo looga adkaan lahaa marka arinta meel kasta oo dhanba Soomaali maanta far isku fiiqin iyo hebel intuu ka khalday iyo wasiirkan meeshan kuma habooneen iyo kan caynkan oo kale waxa ka fiican in la yiraahdo war maxaynu wada qaban karnaa madaxweynihii Mareykanka oo John F Kennedy la oran jiray wuxuu yiraahday ask not what America can do for you rather ask what can you do for America yani wadankaadii markii loo lifaaqa Soomaaliya ha isweydiineen muxuu wadankayga aniga igu kordhinaya waxaad isweydiisaa maxaan ku kordhin karaa aniga wadankayga maxaan ku kordhinaya marka hadda Soomaali fursad bay haysataa fursadan waxaan aaminsanahay in laga faa'iideysan doono in annagii la dhalanayna aan garab u noqon doono iyagana ay haddaba go'aamaha ay gaareen horta Soomaaliya dhibkeeda ugu weyn waxa weeyaan faragelinta wadamaha ajnabiga faragelintaas aytuna sida looga sugi lahaa horta looga bixin lahaa ilaa waa qaran hadda maanta ninku oranayo waan tabarrug yarnahay oo wadamaha jiraanka hadii aan si adag oo la hadalno way inayna burburiyaan baan ka yaabana kuma burburin karaan qaran weeyaan hadii wadanka ku xoog badan yahay burburin karo Mareykanka qabsan la adduunka intiisa kale oo dhan ma kala dalkay China inta maad ka agdhow dhan qabsan leed Ruushka inta ka agdhow qabsan leed meesha waxa weeyaan wadanka ugu yar adduunka sida Bahamas oo kale iyo maxay ahayd Mareykanka isku cod ay ku leeyihiin United Nations marka faragelin baa lagu hayaa kaliya haduu madaxweynaha ama prime ministerka ama safiirka u joogo New York u yiraahdo wadanka waxa loo soo saarayaa maxay gudi oo UN-ka laga soo diray oo baxthi sameeynaya oo baaray wixii ahayd hadii lagu helaana sanctions international sanctions baa jira marka ninku burburin kale ilaahay inta ma jirto dad baa lagu soo diray aankaas oo kale shacabka Soomaali uu kacsan yahay oo xamaasaysan yahay wixii bariga hore ka dhaadhacsaneed oo ahayd hadii idinka dal la qabsan wadamaha jiraanka oo qoomiyadaha Soomaalida ay ku nool yihiin adigu waa lagu badbaadinaya been bay noqotay waxay noqotay tiyan haysteen waan haysanaya taadana waan si kala burburinaya oo intaas oo qayb baan ka dhigaya inteedana dib baan u laqaya marka waxa weeyaan wadanka hadda waxa soo aan baxday oo kor soo martay wadanimadii marka waa inay ka faa'iideystaan dadka xukunka daaya ilaa shacabkii baa diyaar u ah qarannimadoodii xurriyadoodii iyo sharaftoodii marka loo eego wadamaha jiraanka inay sugaan marka hadda waxa loo baahan yahay in la maalo maxay ahayd goodwill-kaasito ay ummadda Soomaaliyeed diyaar ay la tahay si kastana waa loo maali karaa horumar ahaan baa loo maali karaa maxay ahayd iskaashi aan caadi ahayn bay samayn karaan dekedaa la dhisi karaa wadamaha kale oo iyagana kula dagaalamaya waxay wadamaha maxay ahayd مثلا khaliijka oo laba shay ka cabsanayaan
mid waxay ka cabsanayaan xeebta bariga oo Soomaaliya in dekada laga hagaajiyo marka dib ay ku guday ma jirto wali faanti Soomaaliya free ports hadii laga hagaajiyo ilaa Soomaaliya wadnaha adduunka ku taala hadii free port laga hagaajiyo raas xafuun oo kale oo Suezki waka Europe loo kacay South America wata North America wata Africa intiisa kale wata Asia iyo the major industrialized states nations oo sida China iyo Japan iyo India iyo Hong Kong iyo Singapore iyo Korea ay xagee jiraan marka nin laab galayo ma jiro alaabtoodii ay u keenayaan suuqa maanta Kuwait مثلا Dubai oo kale waa suuq caalami marka ninka suuqa caalamiga muddo dheer ku galay inuu gaaro haduu ka heli karo meel nabad ah oo suuqiisa dal laga suuqi karo oo Soomaaliya xeebteeda bal karo ma kacayo marka shidaal baadna Soomaaliya ku jira waxa ka dhaadhacsan hadii shidaalka Soomaaliya la soo saaro in maaragtay ay kan Sacuudiga uu adkaanaya sida loogu baahdo si fudud oo kan Iran oo kan Imaaraadka iyo kan Kuwait ma garta halkay iyo maxay kuwaas oo dhanba cabsidaas ku jirta oo waxa ka dhaadhacsan marka hatta taariikhda Soomaaliya dib loo eego aad loo fiiriyo Iraq baa kamid ah wadamada aan ku sheegay ina xastaan in kale mooyee waxana waa mu'amara aan meel ka ogaaday oo hadda aanan bilaabanin toddobaatamiday bilowdeen markii مثلا Iraq oo bacthiste Iran oo Shiica maxay ahayd Sacuudiga oo Sunniyiinta oo maartay malik ay maamulaan Imaaraadka oo dadka aad garanayso wadamo yar oo isku imaadeen ahayeen kulli waxay ka noqonayaan garab ka wada noqonayaan sidii Soomaaliya loo curiyaamin lahaa sifa suuqoodii ay ku noolaayeen marka dagaalka Soomaaliya lagu jiro waxaad leedahay waa dagaal waa balaaran yahay aad buu balaaran yahay dagaalka Soomaaliya lagu jiro meelo badan oo hadda aan iska dhaagin wadamaha hadda maxay ahayd annaga hadda jiraanka oo markasta loo isticmaalo dareysan yihiin madaxda Soomaalida farmaajo خير بدن الله سيو وسوء لي رجال الصوماليين مبدأ هان وحو آمن سنة وحتى الثاسس كيس اللي ورنشري ماسترز وكسمي أيا إهد من قرن نمط الصومالي شرفت هذا السوء لسه جيران كان إن مركز طبعا شكل لقى قبعيته مركز ساعة وصوق علي ما دام من العرس وها مركبة وحلوه في دي ستيت فيزيت حلوه في دي السعودية أنا قلت واحد international relations اللي بيقول شيء وحلو بهني شكي أنا كان دماني أنا قط مركز طبعا مركز قاعد بيقول دوي وضمت يقول لي وامحي إلا إن ضمت هذا كوسو دوي أنا قاعد كوش علاني مجرو أنا كل شيء قديسو وحيابها كلي وح مارتي النهيان شيخ خليفة زيد النهيان يا بيرانا كلها حمر أفقوي أجار كذا غالب بدنا السنجري صومالي بريغوري عراقي أنت يا شذا السنجري كل واحد جعلنا هي قلنا الصومال الصومالي ده جامعة العرب كتيرو إسلام كأهو عربته بالشيطان إن كستو أنا عربنا هي أنا عرب هين أي مارتي أي سكت هاي واحد ضد بين كلا أنا من سنة هي أنا صومالي هاي ما هين كالجعلة هذيك الوولي الوها يستو الوجع لي مصلحة هذا ماشي كجرتي markii shidaal free lagu siin jiro inta Iraq inta hagaajiso haamooyinka lagu keeni jiray kaada si uu soo bixin ma lagu xisaabtamay baardo kaada soo baxa kooda nin laabka u galeeyahay ayaa yaraan laha marka waxaan ku sheegayaa dawladnimada macnaheeda waxa weeyaan shaki aanan dhamaanayn inaad ka qabto arintii marka farmaajo iyo wad oo Sacuudiga markuu aaday marka aad baan anigu horta aan soo dhaweeyay arinta iyada waxaan aaminsanahay ننسى فضل الله سير كريم السنين وسعودية هيا عرب كلا هاتيا أفريقيا هيا نكستون منين وندنتي صومالية ومقدس كهاد كو حساب تمية أو نكستو لحساب تمهينا حساب تنربع اللي لكن عاطفة إيو ما هي قص الفرب بدن أو ما قالوا كسر أنا جرينين إيو قلبي حارن إيو ما يدولد ما قلبي حارن ما تولد ما وصير صعوت وأنا ماني ويان وادي فهمت السمع وأنا أمس سنة هنا إنما كهاد حكم كحيان حتى يقولي بكفي إذا استندت وري dad waxaa jira Soomaali oo madax ahaan jiro militariga iyo wasaaradda arrimaha dibadda soo ku soo jiray oo markood nool Umar Abdiqaali wali waa noolay Soomaa dad badan baa iska jira oo hadii hatta talo la weydiisto wax badan u sheegi karo maxay ahayd marka qarannimadii iyo qabkii Soomaaliyeed in la soo celiyo oo wax kasta inay suurtagal ay noqoto marka soo aragtay Muqdisho marka tagtay dawladnimo ma ka aragtay magaalada wax u baahan shaqo badan oo laakiin aaskeedii aad moodi inuu ka muuqdo yaa meeshii aan ka soo arkay
hadda muqdisho aan hadda iguma horeysan wax badan baan tagay hadda kahor wax isbedela ma jira intii u dhaxaysay isbedel weyn markii ugu dambeysay tagay hadda dhaxal isbedel weyn baa u dhaxay horta magaalada way camiran tahay dadka way shaqaysanayaan qaraxa ay waxa dhacayo oo dhanba qaraxa dhacaya waa la iska howlgalaya dhismihii way socdaan horumarkii u socdaa Soomaalidu way shaqaysanaysaa oo Soomaalidu nin Gerald Hanley la dhaha yaa buuka qoray hadda ku hor ahaan jiray second world war Soomaaliya ka shaqeeyay qayb kastaba wuxuu ka shaqeeyay qoqoy Soomaaliya ka shaqeeyay furbo ka shaqeeyay ila Ingiriiska waa kii uu Talyaaniga uu ka bixiyay Ethiopia iyo meelo badan iyo Soomaalida ka bixiyay oo kaga adkaaday gobolka ogaadeen uu ka soo shaqeeyay wuxuu ku tilmaamay inay yihiin dad aanan caadi ahayn haddaad u sii dhabo gasho waxa ay suuragelin karaanna alxamdulilah adduunka dad lamid ma jiro runtii dhabta waa midda iyada keli waxaa loo baahan potentialka iyo qiimaha farada badan iyo raganimada iyo maskaxda saytu in laga ilaaliyo inay wada khalad ay marto wadadii saxda ahayd oo Soomaaliya lagu dhisay ayana sharafta soo ceshan lahayd keli un lagu aruuriyo marka taana waan aaminsanahay inaan haddii hadalku u socdo dardaaranku u socdo waxaan hadda aan wadnay wax lamid ay socoto inay soo noqon doonto sharafta iyada